Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Waxiid. Cidi jecel cid muhiimad isiinaysa ma lahan. Waxaan rabaa inaan idiin sheego wax dhacay marka uu aabbahay geeriyooday kadib. Waxaan ula jeedaa marka aabbahay ii soo cadgubteen. Hooyaday ayaa musqusha ii waday, waxayna iga soo dhaqday bensiinka iyo dharka aan xirnaa. Walaacdana way nadiifisay. Sidaas ayay dembiga dhan iiga dhaqday. Booliska ayaa waxay ogaadeen meydka gubtay inuu ahaa aabbahayga. Waxayna bilaabeen in ay baaritaan nagu sameeyaan. Qofka ugu horeeyay laga shakiyay ayaa hooyaday ahayd. Maalmo ayay baaritaanka nagu wadeen. Hooyo ayay su'aal weydiinayeen, laakiin aniga maadaama aan hadli karin, su'aal malay weydiinin. Hooyo ayaana difaacday, daliilna way nagu waayeen. Sidaas ayay nagu fasaxeen, laakiin hooyo way iga hari weyday. Waxay igu dhahday, dambiilayahow sidee ayaa aabbahaaga ku gubtay adoon lagu dareemin? Aabbahaaga marka uu dhahayay meesha agoommada ayaa lagu geynayaa, run ayuu sheegayay. Sidaa ay tahayna hadalkeed kama xumaanin. Jacaylka ay u qabtay ayaa indhoole ka dhigay, mana aysan dareemaynin sida ay ii xumaynayso. Laakiin waan u aarguday. Inta uu naag kale joogi lahaa, inoo dhinta ayaa ka fiican. Naagta dariskeena aan idiin sheegayay markasta way imaan jirtay si ay hooyo u dejiso. Waxayna soo wadan jirtay canugeedii yaraa. Hooyana way qaban jirtay, wayna shumayn jirtay. Aad ayaan ugu maseeri jiray. Sidee ayaa hooyo ilmaheeda runta ah u dhunkanaynin halkay ilmaha kale ay dhunkanayso una naxariisanayso? Waxaan ku fikiray sida aan naagta dariskeena guriga ugu celin lahaa. Markasta ay timaado albaabka ay soo garaacdo, TV-ga codkiisa ayaan dheerayn jiray si aysan hooyaday garaaca albaabka u maqlin. Dhowr jeer ayay albaabka ka laabatay. Maalin maalmaha ka mid ah, albaabka waan ka furay, haddana waan ku xiray. Mar kale ayay soo garaacday. Waxiid, maxaa kugu dhacay oo albaabka iigu xiraysaa? Hooyo ma joogto? Maya, haye albaabka dad aadan aqoonin ha ka furin. Sidaas ayay ku baxday. Hooyana jikada ayay ku jirtay, waxna ma maqlin. Galabtii ayay soo laabatay, laakiin markaan garaaca albaabka hooyo ayaa maqashay, ayadaana furtay. Waxayna soo dhaweysay naagtii iyo canugeeda. Maanta subaxdii ayaan kuu imaaday, ma joogin miya? Laakiin guriga maba ka bixin sida uu ninkayga u dhintay. Waxiid ayaa iigu dhahay, hooyo ma joogto. Waxiid maa wax la weydiiyaa, inuusan wax fahmaynin waa ogtahay. Hadalka hooyaday ayaa aad ii xanuujiyey. Markas sidaas oo kale ayay igu dhahdaa. Waxaana arkay mar kale ayadoo canuga xambaarsan. Markaan si qoto dheer ayaan u fikiray sida aan ugu takhallusi lahaa canugan yar oo iila tartamaya jacaylka hooyaday. Hooyo ayaa canugii dhigtay, ayada iyo saaxiibteenna sheeko ayay ku mashquuleen. Ayaga oo i dareemin ayaan barkiin soo qabsaday, kadibna wejigiisa ayaan ku qabtay. Daqiiqada ayaan ku hayay ilaa uu ku caburmo, naftana ka baxdo. Barkiintii ayaa meesheeda ku celiyey. Waxaana arkay wejigiisa oo isbedelay. Inuusan wax dhicin ayaan ka soo qaaday. Waxaana u soo baxay banaanka saan carruurta ula soo ciyaaro. Meeshii ayaan fadhiistay saan u fiirsado carruurta oo dheelaya. Saan mar hore idiin sheegay, waxay iga aaminsanayeen inaan foolxumahay, aanna xanuunsanahay. Hal saac ayaa ka soo wareegatay, qaylo ama cod dhan ma maqlin. Waxaa hubaal ah hooyo iyo saaxiibteed in ay sheekada ku dheeraadeen, mana aysan dareemin canuga yar meesha yaala. Anoo saas u fikiraya ayaan maqlay qaylo oo guriga ka imaanayso. Hooyo saaxiibteeda ayaa soo oroday ayadoo canugii xambaarsan. Hooyona way ka soo daba baxday. Hooyo ayaa gaari istaajisay. Waxaan maqlay ayadoo dhahaysa, isbitaalkana geey. Baabuurka ayay koreen wayna baxeen. Anna aad ayaan u fikiray. Waxaan isdhahay mar hore ayuu dhintay, isbitaal waxba idin tari maayo. Saacada kadib way soo laabteen. Dariskana dad badan ayaa u imaaday oo tacsida ka gudanayay. Laakiin hooyaday janaasada ayay raacday. Guriga ayay ku soo laabatay. Gacanta ayay iga soo qabatay. Guriga ayay iila soo gashay. Waxayna igu dhahday, adiga waayay, adaa canuga xabqiyey miya? Runta ii sheeg, canugu yar adiga maa dilay? Ii jawaab, haddii kale ma isii noolaanaysid maanta kadib. Madax ayaan luxay anoo dhahay, haa. Sidee ayaa u dishay? Waxaan u tilmaamay barkiinta. Aad ayay iigu qaylisay. Sidee ayaa canug yar aan dambi lahayn u dilaysaa? Dambiila aan naxariis lahayn ayaa tahay. Qofkii saddexaad aad dilayso waaye. Adi bini'aadam maa tahay ama shaydaan? Hooyo ayaa sariirta ku fadhiisatay. Waxayna igu dhahday, saaxiibtay ayaan aadaa saan u garab istaago una soo sabarsiiyo. Marka ay tacsida dhammaato ayaan wada hadlaynaa. Marka labaad ayaad badbaaday. Digtoorka wuxuu dhahay, canugu yar wuu caburmay, sidaas ayuu ku dhintay. Sababta caburinta keentayna lama oga, laakiin anaa fikiraayo saan kuu ciqaabayo. Waxaaba laga yaabaa booliska inaan wax walba u sheego. Hooyo ayadoo
iyadoo xanaaqsan ayay baxday. Anna aad ayaan u cabsaday, waxaana kasii cabsaday booliska inay ii sheegto. Qolkayga ayaan galay, waraaq ayaan soo qaatay, waxaana ku qoray: hooyo, booliska ha ii sheegin, waan ku jeclahay. Hooyadii maalintii dhan deriska saaxiibteed ayay waqti la soo qaadatay. Habeenkii waqti dambe ayay imaaday, qolkaygii ayay soo gashay anoo hurda. Waraaqada ayay soo qabsatay, way aqriday, wayna ooyday. Waxayna dhahday: beer wax dhalay ayaan ahay, ma laga yaabo inaan booliska kuu sheego, laakiin maanta laga bilaabo inaan ku ilaaliyo waaye. Asxaabi, waxaan u malaynayaa qorshahayga inaan ku guulaystay. Dhimashada canugaasna waxay sababtay hooyaday inay i jeclaato, laakiin waxaan u malaynayay midaan inay ahayd caqabada ugu dambeysa. Ma ogeynin wax badan inay ii dambeeyaan. Haddii rabtaan inaad ogaataan intaas kadib waxa igu dhacay, fadlan la socda qaybta 3 ee qisadayda. Fadlan haddii aad channelka cusub tahay, waxaan kaa codsanaynaa like iyo share iyo subscribe inaad noo dhahdo.